of clarification aan rabaa inaan baxsho waxaan arkay qolo isoo qorto tiri farmaajo dalka wax u dhaama ma lahane ha loo dhaafali anugu ma dhihin warkaan ir waxay tahay farmaajo haddii aan la iska dhicinayn oo dagaalo aadeen lala dagaalamaynin dalka aan la qashqashaadina inta buuqaysa iska tagto that is my point I never said farmaajo waddanka loo dhaafo qolo arkay misquotation ugu samaynaysa markale ku celi waxaan ir dada arkay misquotation ugu samaynaa ama si qaldan hadalkayga u turjumaya aniga wax ma dhihin farmaajo qof dalkan u dhaanta ma leh hala dhaafo ma dhihin waxaan iri farmaajo dagaalo aaday inayna waddanka qashqashaadii buuqa ha la iska dhaafo faraha ha laga qaado micnaheedu ma ahan farmaajo dalka loo dhaafo farmaajo waa in dictatoriyadu aaday doorasho waa ka tegay xadgudub aaday xaqana waxaa la qabaa in laga hor istaago oo xaq la kaalmeeyo foodada la joojiyo xukunkan xoogga lagu marosana la joojiyo laakiin maalin kasta shir jaraa'idaan qabana waa hibina sharciga ha lagu dhaqmaan it doesn't work what does work warkaas maxaa shaqeynaa taliye fiiri waxa shaqeynaayo waxay tahay marna sharci islaamku wuxuu qabaa munkarka in af ii sheegeen maxaan ku dhahaa lagu joojiyo mar ficil u baahan yahay marna ka aamus u baahan yahay ka aamusid iyo hadal waa soo gudubtay farmaajo wixiisa darbiga ku sheegtay doorasho ma raba dalka ina xoogaan rabaa la yiri ninkaas waa in xoog lagu hor istaago hadda xoog lagu hor istaagi karin qashqashaadii buuqa la iska dhaaf meel u dhaxaysa ma jirtaa leedahay waxaan rajaynaynaa in I don't believe in la gaadgaadi karo fiiri ninka asaga naftiisa dadka darbigu geeyo ma marmarka qaarkoodna fiiri doqonta marmarka qaarkoodna ilaa usha ay korkeeda ku dhacdo dareen ma leh maanta wada isha ninka dabaalka hadduu farta kaaga haayo inaa xanuunsan tahay in kale shaqadiisa ma laakiin isha asaga farta markaa geliso xanuunsana ninkan waa still ma xanuunsanayo he believes laba arrimood koow dadkan inaysan dagaal isku raacayn labo haddii dagaal dhaco wax ka luma inuusan jirin saddex waqtigiisa bacdama uu soo dhammaystay inta adventure waay he is gambling haddii ku hagaagtan weel haddii laga hor yimaadaan iska tag marka dadkan oo disorganizerka maanta oo wacdiga wada ninkan wacdi ma rabiyo taandhada uu yimiday baarlamaanku yimiday accession uu ka qaatay adduunku uu yimiday warkiisu sheegay maanta uu kala diray guddiga doorashada ninkaas doorasho uma socday laba option ku dhiman xoog waddan ku qaba in la joojiyo qari gardar waa in laga joojiyo si silmiya haday tagto xoog isticmaalaan xoog waa in la isticmaalo hal raba warkaas inuu cad yahay waa cad yahay xildhibaan waxaan rajaynaynaa waxay u baahan tahay habeenada dhow inaa arrintaas